بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تفسير سورة الناس ومدنية وسورته سودة انتو رسولك صلى الله عليه وسلم كنوا لا مقالة مدينة وسورة وهو سورة قرآن كريم آيضه ذن والح آيضود وحين كاد ليسا إنساك إنو كالميستعله كان مغنقل عدو قمتك ودن شرطي سوا شياطين تكوض إنسي جنك كمتها شرطو ذا إني قفك وسواسيان لابتي سونا قرحيان حمان سمينتيدا kuna dhiirigeliyaan halkay u fool xumeeyaan qeyrka kana dibdhigaan sameyntiisa qof kasta oo bani aadam ka mid ah sidoo nabiga sallallahu alayhi wasallam sheegay waxaa lagu lamaaneeyay shayaadiin u qurxinaya gaalnimada macaasida daacada Allah oo laga baxo qof kasta oo muslimka ah wadada kaliya ugu badbaadi kara dhagarta shayaadiinta waa inuu Allah sifaad weyn leh ka magangalo si uu ugu ilaaliyo shartooda waxaana ka mid ah waxa shayaadiinta loogu badbaadiyo inuu aqriyo qofka suuratu naas alle wuxuu dhahay bismillaahi magaca Allah ayaan suuradan akhriskeeda ku bilaabayaa arraxmaan Allah naxariis guud ahaaneed naxariista arraxiim Allah naxariis guud ahaaneed naxariista qul lehno maxamedow acuudu waxaan magangalayaa birabbi naas Allah dadka barbaariya nimcooyinkiisa ku barbaariya maliki naas dadka boqorkooda ayaan magangalayaa ilaahi naas macbuudkay dadka caabudaan ayaan magangalayaa من شر الوسواس كان وسواسي شرتي سايان كمان قاليا ألقى الناس دومشة بدن الذي متكاسو يوسوس وسواسيا في صدور الناس دت كلابه ذا من الجنة جنة والناس إنسي